الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم magacaygu waa xasan cabdinuur haddaan isku day jawaabtaas su'aasha ay weydiisay jawaabteeda isbedel nooca ayaa la sameyn karaa isbedel horta la sameyn karo aad u badan yihiin lambar 1 in dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada qurbaha ay horta yeeshaan leader hogaamiya malahan for example anaada waxa ku nool wadankan Kenya malihin isku xirnaan aad u weyn xaafada Islii waxa tusaale kale ah in dadkan qoomiyadaha kale ku dhaqan xaafada waxay leeyihiin dad oo hogaamiye ah oo dawladan wixii dhibaato oo ka soo gaara ama wixii dhibaato ay looga shaqeey kala hadla saadada anagana malihin dad oo nahor kaca oo wixii aan tabanayno iyo wixii xuquuqdeena iyo wixii anagana ku leeyahay xuquuq ah dawladda kala hadla saadada dhibaatada waxa looga bixi karaa oo qalqkaas loogu hortay karaa inaan yeelno leader wanaagsan iyo isku xirnaan leader waa leena laakiin malahan wadadii loo rabo mu wajahna annagana tii aan rabnay ma aan wajihin saadada hadaan yeelano leader iyo isku xirnaan dadka shacabka ah ee Soomaalida ku nool dalkan Kenya garaan xaafada Islii qalqalka ay ku jiraan waxaan qabaa way ka bixi karaan wana mahadsantiin waxaan leeyahay ko umada Soomaaliyeed waxa lagu hortagay in umada Soomaaliyeed markii hore midowdo markii labaad waa inay wax bartaan because Soomaaliya ma lahan wax barasho wadankooda xagga dhirta wax barasho la'aan waxaan ma haystaan ay wax ku bartaan marka waxa fiican inay ay wax bartaan kikad wax qalqalkeena iska dhaafaan sida muqaadaraadka inay iska dhaafaan tuuganimada iyo waxa la midka ah waa inay wax bartaan ay naftooda wax u qabtaan dalkoodana wax u qabtaan mid kale waxaan dhahay inay umada Soomaaliyeed iska dhaafaan dagaalka sida dilka burcadnimada iyo waxa la midka ah waa inay tusaan dalka waa inay wadamada horumar ay la tartamaan waa inay midoobaan waa inay isku soo noqdaan waa inay tanaasulaan iska dhaafaan qabiilka iyo wixii la midka ah Soomaaliya wadanka geeska Afrika ugu fiican waxaana fiican inay midoobaan ay iska dhaafaan waxaan ay wadamada caalamka ay la jaan qaadaan ayagana doorkooda ka ciyaaraan